وهذا جركيو وركيو قلبيga adiga hanto iska yeeshay adiga macan aragaygi akamarmine sidaad adiguna ka wayne aragiisa ka kortagsado amani ducaba istahisha inanku tirsha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يالكسو دواد قصدي تحنها إنا أهيد جعلتي قرصونات ضبسنا محاو دنبيي قيبتي لبعض gabadha uu yaxay jecel yahay waxa iyaduna jeceshahay wiil kale oo ay isku fasal yihiin oo ah wiil uu dhalay maal qabeen hase ahaatee gabadha kama yaraysato wiilka oo aabaheed ayaa iyadana ah taajir waxa ayna ku tahay kali oo isaga ayaa ku soo koriyay dhabtiisa hooyadeeda waxa ay dhimatay iyadoo jirta 9 sano waxayna ku soo barbaartay aabaheed dhabtiisa wuxuuna u jecel yahay si xad daaf ah gabadhiisa gabadha yaxay uu noloshiisa wada siiyay iyaduna ay nolosheeda siisay wiil kale magaceedu waa Ashaar hase ahaatee wax alla qoray baa socon oo wax kale ma suuragalayaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadha uu yaxay jecel yahay balse aan loo ogeyn ayaa waxa ay ku dhacday meel barkad lagu dabaasho ah mana taqaano dabaal cid kale oo ka badbaadin kara moolka ay gashayna ma lahan waxaa la joogay Ashaar marka ay moolka ku dhaceysay saaxiibadeed waxayna ahaayeen kuwa aan dabaal aqoon waxay ku caawiyeen inay caawinaad weydiistaan afkooda qayladiisa durbadiiba waxaa si kadisa u maqlay yaxye oo ah mid markasta Ashaar ka daawado dusha sare waxa uu si kadisa u galay barkadii kana soo badbaadshay Ashaar balse waxa uu soo saaray iyadoo biyo badan ka dheregtay suuxsanna banaanka markii uu soo saaray ayuu neefsiiyay kadibna way neefsatay hase yeeshee maysan ka kicin suuxsanaantii waxaana yaxye u yimid gabdhahay saaxiibada ahaayeen Ashaar oo u sii qaaday xaafadooda si ay ugu soo naxdo halkaas waxaana yaxye ku adkeyd in uu raaco gabadha uu jecel yahay waayo aqoon badan iskuma lahan gabadha oo isma galgalaan balse aad ayuu u jecel yahay waad ku mahadsan tahay dhegeysigaaga habboon la soco qaybta xigta ee qisada haddaad nasabay kalgacal nolosha ila qaybsan layd sidii waxaan noqon lahay nafqudha oo laba jiro haddaad nasabay kalgacal nolosha ila qaybsan layd sidii waxaan noqon lahay nafqudha oo laba jiro marbaan wada neefsalayn marbaan wada nuuxsalayn marbaan wada noogilayn marbaan wada neefsalayn marbaan wada nuuxsalayn marbaan wada noogilayn